saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashadaad daawanaysan channelkayga fadlan subscribe ii saar aad baa mahadsantihiin ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena ciyaaraha maanta ama caawa waxaan idiin soo deyn doonaa taariikh nololeedkii Mahad Muuse Jaale halkii uu ka soo bilaabay ciyaaraha cidda ka saaciday markiisii hore inuu noqdo ciyaaryahan soona galo garoomada inuusan ahayn markiisii hore daafac cidda ka dambeysay inuu ka ciyaaro daafaca markii dambena noqday daafac lagu tashto ayna adkaan jirtay in lala garab maro kubadda cagta nasdihii gobolka mudug soo maray inuu waayihiisii wajahay weeraryahanno badan waxna kala tegi waayeen Mahad Muuse Jaale ayaan ku wareystay qadka taleefanka isagoo jooga London. kusoo dhawow mahad hafada production barnaamijka ciyaaraha waa ku dhawahay walaal marka hore magacaaga saddexan iyo halkaad ku dhalatay mahad magacayga waa Mahad Muuse Jaale waxaan ku dhashay Banaadir Muqdisho waxaan ku soo koray magaalada Gaalkacyo aad baa mahadsan tahay marka hore iga waran waayahayga sports iyo halka aad ka soo bilowday ciyaaraha niyahow taariikhda horta aad ma wada hayo way dheer tahay balse dhalinyaradii sportiga yaraa oo gobolka mudug oo CRC ka soo bilaabay xaafadaha ku ciyaari jiray kadib ciid guduud meel la yiraahdo iyo soo maray kadib ciyaal daraawish iyo soo maray kadib soo galay seerabidii gobolka markii dambe oo koobkii xaafadaha Israac iyo Hormar iyo Garsoor iyo aan soo marnay kadib markii dambe seeraa tiimamka ahaa soo galay ayaan kamid ahaa wahagaag imsa koox ayaa u ciyaartay seeraadi marka qiyaastii waxaan u ciyaaray markaan waxaan u malaynayaa 5 kooxood inaan soo ciyaaray hadday ugu badan tahay 5 kooxood ayaan u ciyaaray wax ma ka xus kartaa kooxahaas hadaa xasuusatay si wanaagsan baan u xasuustaa kooxdii igu horeysay oo aan seeraa u ciyaaro waxay ahayd kooxda Badr oo ahaa tiimka gobolka ugu khatarsan waqtiga oo ay aad iyo aad u xifaaltami jireen ama challenge u sameyn jireen xalwaqtimaayo tiimka la dhihi jiray iyo Galcom oo bardacad la dhihi jiray bariga marka Badr ayaa igu horeysay Gecko ayaa ku xigtay kadib Tawfiiq ayaa ku sii xigtay kadib waxaa ku sii xigtay dawladda hoose waxaa kaloo ku xigtay Galcom wahagaag inaad ka mid ahaato gobolka mudug yaa sabab u ahaa maadaama aad ahayd nin da'yar oo ay jireen daafacyo ka waaweyn sida Qaadiraale Axmed Wardheere Mustafa Walwa marka sidee yani dadkaas ka waaweyn aad adiga ula ciyaartay wallahi horta laba waqti ayaan oran karaa mar waa markii aan seeraa soo galayay raggii soo gacan qabtay marna waa markii xulka aan u gudbiyay raggii aan la kulmay ama say soo gacan qabtay ama tababarayaashii runtii tiimkii Badr raggii ku jiray oo soo gacan qabtay waxaa kamid ahaa Shaafici Cabdigare Minjir Axmed Wardheere iyo Shiina Dheere khaasatan Axmed Wardheere iyo Shiina Dheere oo aad iyo aad kalsooni gelin jiray wax casharro badan aan ka bartay oo dhanka gadaalka ciyaaridda difaaca markii dambana xulka waxa igu aad iyo aad gacanta ay qabtay oo markii ugu horeysay oo xulka la magacaabay tababarihii magacaabay oo soo galiyay waxa uu ahaa Cabdi Sabeeye tababare qaaliya Badarna isaga no coach ahaa no tababare ahaa Gecko isaga tababare no ahaa labadaas tiimba xulkana isaga markaas tababare ahaa oo raggii ugu horeeyay magacaabay ku jiray waa mahadsantahay mahad ma jira gobolka intaad mid u ciyaaraysay qaadkaagii aad gashay kii ugu weynaa hal iyo labo ma ka xus kartaa wallahi khaladaadku dee haddaan u qaado khaladaad mid yaro kulul oo mataqaan aan red card iyo wax qaatay waa uu jiray ciyaar
koobka gobolada loo socday oo intaan iska yaraa laga saaray xulka inta laga saaray xidigaha aan u ciyaarayay oo xilka iyo xidigu waxay ahayn xulka kuwa ku xiga levelka ku xiga oo aan red card si aanan ku kalsoonin isdhahayay garoonka lagaga saarayaa la igu siiyey oo aan diiday garoonka inaan ka baxo oo booliis la igu yeeray oo la xiray oo stationka la geeyey dadkii hortoodii la mariyey oo bartaa la geeyey taasi waxay ahayd wadna xanuun maalin kulul bay ahayd oo mataqaan weliba aabbahay oo tarabuunka saaran oo daawanayay oo ka mid ahaa dadkii markii aan khaladkaas ku dhaga adeegay laysoo kaxeeyey laysoo hormariyey dhanka kale haddaan dhigana mid kale wuxuu ahaa annagoo boosaaso ciyaarayna ayaan maalin oo ayaan gool ka dhaliyey gool aad iyo aad aan wadnaha ii jartay waxaan ka dhaliyey tiimkayagii anigoo isdhahayay goolkiibarka ku jeedaayo si yaroo tartiiba maaragtay madaxa ugu baas oo kale kusii ayuu soo dabamaray goolkiibarkii gooshii cidlaa ayaan dhex dhigay boosaasaan joognaa waad garan kartaa level xulka gobolka oo kale meesha maraya tarabuunkiyo la buuxo wadna jab aad u weyn oo ilaa haddaan ilaabin bay ugu tahay gooshaasina marka ma reflection iska dhalisid oo treeto ma goolkaas kaliya aha mise goolal kale jira waa jireen goolal kale laakiin levelka markaas aan maraynay levelkii wuxuu ahaa xulka gobolka boosaaso oo aan aad u challenge garayno team aan xisaabtan badan naga dhexeeya ah baan joognaa awey baanu nahay lambar 5 baa lagugu aaminay difaacii gobolka tahay kalsoonidaadu aad inay u sarreyso weeye marka levelka aad maraysid marka haddii mistake khalad inkastoo aan isleeyahay goolkiibarka khalad lahaa oo goolkiibaradii kale way fahmi jireen laakiin goolkiibar iska yara fudud ayuu ahaa goolkiibarka marka madax ayaan ugu baasay baas buu iga ahaa aniga madax ayaan ugu baasay isagiina wuu daba maray oo wuxuu yiri kubaddu way dhaafaysaa ee gadaashiisa ka qabso gooshii cidla ayaan dhex dhigay gooshaasana looga badiyay gool niyad jab ayay ahayd وهاجك إن ما هاد واحد شري كوحه وحنا لودي شري كوبب متشري كوح أما كوحه هذا هدي أي كاب بديان هذا نجعل سنترين إن كاب بتشان درين كاجن يسبدلج runtii waa jireen khaasatan laba kooxood ayaa jiray kooxda xalug Kismaayo waqti dheer ayaan xisaabtamaynay oo aad u nabcayn oo inay naga badiyaan oo aan kala ahayn Gecko iyo xalug Kismaayo ama Badar iyo xalug Kismaayo aan kala ahayn berigii dambana tiimka noogu dhibta badnaa oo haday naga badiyaan aanu dagaalami jirnay waxay ahaayeen Galcom rag badan oo saaxiibada ahna ay ku jireen mataqaan oo xifaaltan weyn naga dhaxay وهاجك maxaa ka xus kartaa ragaas xifaaltanka idinka dhaxay wallahi Galcom runtii waxay ahaayeen dhalinyaradii gobolka xulka markaas aan ku wada jirnay xulka gobolka ka wada tirsanaa 80% adigu laba qof mooyee koob iyo 10 kooda garoonka ku jirtaba isku xulka gobolka uu wada ciyaari jirnay si wanaagsan baan isu naqaanay waxayna ahaayeen team dhalinyaro ah oo isku xiran kala tagtagin mar walba challenge ku jira oo mataqaan inay koobka qaadaan marka hamigooda sareeyay annagana hamigeena sareeyay marka inta un baan isku qabsan jirnay xifaaltanku intaas oo ah markaan ka soo tagno sportska marka aad dheeleen footballka maxaad kale oo mashquul ku ahaan jirtay footballka marka laga reebo waxaan ahaa arday Umar Samatar Secondary School digta baan ahaa oo inta badan subaxii iyo marmar galabtii xataa garabley waan ahaan jiray Umar Samatar Secondary School dhalinyaradii lagu bilaabay ayaan ahaa 1999 2003 gana dhamaystay loo oran jiray dufcadii ugu horeysay kuwaas ayaan ka mid ahaa sida ugu maqaala inta daafac noqon ka hor waxaad ka leeli jirtay position kale arintaas maxaa ka jiray markii aan ugu horeysay seeraa soo galay teamkii ugu horeysay Badar buu ahaa aan u ciyaaray Badar
waxaan uga ciyaari jiray lambar 9 baan Beder uga ciyaari jiray waliba 9 ama 7 gees midiga ama waxaan ahaa lambar 9 aad iyo aad waliba maaragtay gadaal laga keeno binci ah 20 daqiiqad 30 daqiiqad ugu dambeeyay 15 daqiiqad ugu dambeeyay la keeno oo aad baan u jeclaa inaan goosha dhaliyo oo mataqaan lambar 9 baan ahaa kadib ayaa dib la ii bedelay oo tababare ayaa wuxuu arkay anagoo caalamiitada markaan ciyaarayno challenge-ga iyo raacidaydu ay aad u sarreyso arkay tababarahaasna tababare caqli badan buu ahaa aad iyo aad ilaa haddana ma iloobi karo waa Cabdi Sabeey ayaa wuxuu arkay inaan challenge-ga ragga aan la xisaabtamayna rag aan la jirin rag khatar ah ahaayeen sida Faarax Shimuuri Madoobe Minjir teamkayga team adag buu ahaa Shaafic Cabdi Garre Shiina Dheere marka Maxamed Osama nin la dhihi jiray Maxamed Cabdiqaadir Yuusuf Madhiiqaaye Liibaan Cabdisalaan Mazinga rag yar iyo waaweyn top class ay ahaayeen markaan ciyaarayno challenge-gu uu arkay anigoo teamka ugu yar oo aad challenge u sameynaya galabihii kamid ah ayaan ciyaaraynay baa difaaci red card qaatay waxaan maleynayaa Maxamed Osama inuu ahaa markaas gadaal la geeyay aniga Axmed Qorleeraan la ciyaaray gadaal difaac la ciyaaray markaas wuxuu ogaaday inaan ku fiicanahay booska laga bilaabo maalintiina booskaasan ka ciyaaray وهذاك كوكو قبله البلاد عياريه مركز جري ما حد كحسوسته وأديشين waxaan ka xasuustaa koobkii ugu horeeyay koobka gobolada 2000 koobkii gobolada Soomaaliya oo garow lagu dhigi jiray waxaan ahaa ciyaartooyga ugu yar gobolka Mudug oo koobkaas ka qayb gala baan ahaa 2000 ayay ahayd bishii 3aad iyo bishii 2aad ma hubo midkay ahayd laakiin 2000 ayay ahayd koobkaas final ayaan ku harnay Rigora ayaana looga qaaday waxaana Rigorada nooga qaaday Boosaaso laakiin waxaan ula ciyaarnay tiiman badan oo ay kamid ahaayeen Jowhar Beledweyne bay kamid ahaayeen Nugaal Bari intii badneed waan ka wada badinay finalna draw ayay ku dhamaatay Rigora ay noqotay Rigoradii ayay nooga badiyeen gobolka Bari galabkaas Rigorooyinka cidda cuntay ma xasuusata wallahi niyo galab adag bay ahayd rajada koobka ayaan qaadno aad bay u sareysay waxaan aaminsanahay xulkii gobolka soo maray waqtigii ugu xulka khatarsanaa ragga meesha marayay inay ahaayeen galabta Rigorada Ilaahay ha u naxariistee Shiina Dheere ayaa naga cunay markii kulli la wada laaday shan la laaday haddana 5 kale la laaday labadii goalkeeper xataa ay isku laadeen labadii kabtan ayaa la isu soo saaray labadii kabtan ayaa halkaas Shiina Dheere ku dhaliyay annaguna aan ku cunay marka Shiina ayaa cunay Rigorada marka sidaas nalooga qaaday koobka markaad ku soo laabateen gaalkacyo bulshada reer gaalkacyo si ugu falceliyeen guuldaradii runtii taageeraha gaalkacyo weligeed way taqaanaa Puntland waliba khaasatan bariga aad u sareeyay gawaari bay ku iman jireen waxay ku iman jireen guruubyo ku iman jireen taageeraha ugu khatarsan oo tarabuunka saaran buu ahaa markay noo saaran yihiin libaaxiye inay noo saaran yihiin tarabuunkaan aaminsanayn markii aan soo noqonay soo dhaweyntii ma aamini karo gobol loo soo dhaweeyay sidaas oo kale maba qiyaas karaba ilaa waxaa la joogay magaalada banaankeeda ilaa 40 kilomitir camal gawaaridu waa taxnaayeen dadka magaalada dhexdeeda markaan maraynay meel walba naloo istaagsanaa runtii waxay ahayd niyadis aad u weyn waxaan iska sii jeclayn koobka aan wadanay markii loo soo laabto gobolka Mudug weeraryahanno badan baa jiray weeraryahankay kugu adkeed inaad ka hortagtid
weeraryahano badan waa jireen, rag dhib badan, rag kale talentiya laakiin aan aada u shida badnayn. Laakiin waxaan isleeyahay noobaha kugu dhibka badnaa maraacidiisa iyo hawshiisu xasan naafac ayay ahayd. waxaa kaloo isagana aada u dhib badnaa minjir, laakiin minjir inta badan isku group baan ahayn, waan isla jiri jirnay, laakiin waan arki jiray ummadda kale dhibaatada uu gaarsiinayo. laakiin aniga khaasatan ninkii igu dhibka badnaa markaan israacayno aad aan isku dhibi jirnay wuxuu ahaa xasan nige iyo xasan naafac. waxaan kusoo xigay qiyaasteeda waxaan isleeyahay axmed degweyne. wagaag ma jiraa ciyaartoy aad jecleed markasta inaad garoonka kugula jiro? rag badan baa jira, balse waxaan aada u jeclahay inaan mar walba garoonkooda jirno. hadday noqoto xulka oo kale CC, waxaan kaloo jeclahay minjir isagoo kale waa nin talentiya oo boosas badan ka ciyaari kara oo aad qof walba jecel yahay inuu garoon kula jiro. waxaa jirta liibaan cabdisalaan oo kale aad baan u jeclaa isagoo kale inuu garoonka igula jiro. laakiin waxaan isleeyahay CC ayaan ugu jeclaa haddaan garoon ku jiro inuu always ila jiro. wagaag mahada waxaa jirto nin adiga kula dhasho la yirahdo Fahad. inta badan dadku waxay dhahaan Fahad Muuse Jaale wuxuu dhaxlay daafacnimadii iyo kubaddii mahad. arrintaasi ma ku soo gaartay? anigu hal mar baan arkay kubaddiisa 2008 maraan tagay gobolkii ayaan maalin half game yar ii qabteen oo kuru 7 ah oo 6 qof aan malaynayo goalkeeper ayay ii qabteen oo yiraahdeen waan kugu soo dhaweeyeen camal waan kula ciyaaray. half game kulul buu ahaa. maalintaasaan kubaddiisa arkay, aad buu u fiicnaa controlka iyo dhaqaaqa iyo baaskaba. laakiin dee ma garan karo inuu dad badan baa igu yidhi aad buu boosku banooni u ahaydeen, balse markii dambe waa arkay isagoo ilaa koobka gobolada ciyaaraya, balse maalintaas maan arkay, aada uma sheegi karo. marka kabtaada ma gashan kara miyaa isleed? dee raggii ka dambeeyaa kasii khatarsan. anigu laftirkeyga axmed dheeraan bedelay oo gobolka laga dambeyn jiray, marka rag iga khatarsan inay bedelayaan waa ogaa. inkastoo isboortigu barigii hore aan isleeyahay ka buu fiicnaa waqtigan hadda arkay. mahada waxaa jiray nin la yirahdo Muuse aad adigu garanaysa. ninkaas kubad ahaan see u aragtay? Muuse banaadir u ciyaari jiray ba? sax. muuse wuxuu ahaa nin difaaca oo yara oo rag waaweyn la xisaabtama, dhib badan, challenge badan, dagaal badan aan harin, oo maanta oo dhan 4 dhinac mataqaanaa kaa soo gelaya buu ahaa. banaadir buu u ciyaari jiray. banaadirna tiimka iska dhexay ahaayeen berigaas oo tiimka challenge-ga weyn naga dhexeeyo kuma jirin, balse waan arki jiray mar walba markaan wada ciyaarayno iyo nin dhib badan buu ahaa, aada iyo aada u difaaco adag oo akhriska banooniga iyo difaaci iyo sida uu kuu gelayo awoodda uu kuu gelayay iyo yaraantiisu isma lahayn. wagaag macalin ahaan adiga macalinkee u jeclayd inuu macalin kuu noqdo? cabdi sabeeye, nin maaragtay fahmi kara ciyaartooyga iyo ninka yar iyo ninka weyn iyo ninka dhallinyaradaaba isku kaxayn kara iyo ninka dhibta badanba nin isku kaxayn kara ayuu ahaa cabdi sabeeye. aadna u caqli badan oo xataa positionka kaa bedeli kara adiga oo mataqaanaa afaro ka ciyaaraya intuu ku arko dhex ku geyn kara, dhex kaa bedeli kara, gees ku geyn kara, booskaa ku fiican tahay hore kasoo saari kara. waxaana igu xigay Ilyaas Cabdinuur, ilaahay u naxariistay, isagana macalin fiican buu ahaa. wax badan aan soo baranay. wagaag sportskii hore iyo sportskan waxay ku kala duwan yihiin ma sheegi kartaa? sportskii hore markaan fiiriyay hadda dushan kala socday sportskan dambe wuu ka quality badnaa, kii hore quality badnaa, sababtoo markaan isku fiirsho dhalinyarada kuwii gobolka matalayay xataa markay garoon soo wada geli jireen ay hal mar garoon soo wada galaan
Sisi iyo Minjir iyo Maxamed Sheekh iyo Faarax Shamuuri iyo Madoobe iyo Xasan Naafac iyo Mazinge iyo Khaliif iyo Mahad Warsamo Kaarshe, Mahad Faruur iyo Cumar Baflo oo aan aaminsanahay Puntland goalkeeper-ka khatarsan inaanu soo marin markii garoon soo wada galaan quality-ga intaa la wax ka garan kartaa iyo dhalinyaradii dambe markaan fiirsay rag garoonka ku jiray iyo mataqaan inkastoo iyagu wanaagsanayn haddana la quality ma ahayn la xoog ma ahayn hadday noqoto xataa dhanka tirdhisnaanta nimankaasaa waaweynaa dadka mataqaanaa la talanti ma ahayn oo mataqaanaa rag waxaa jiray Puntland oo dhan caanka ah Puntland oo dhan rag caanka ah gobolka mudug kaliya iska daayay boosaaso marka la tago rag loo istaagaan ugu jiray sida Minjir iyo Sisi iyo Shiina Dheere iyo macnaha marka gobol walba laga yaqaan oo Puntland ah marka adiga raay ahaan wax qabtaa sportska hore fiicnaa sportska hore wax badan quality badnaa dhanka quality-ga iyo waliba dhiirigelinta tiimam challenge sameeya tiimam la fangareeyo tiimam mataqaanaa sida ay wada socdaan iyo qaab tiimeedka waraaqadaha waxaan saxiix jirnay statement waxaan saxiix jirnay qof walba form buu buuxin jiray inta 2 sano 2 season 1 season intuu ku ciyaaraya tiimka kale inaanu ka tagi karin contract baa jiray inaanu ka tagi karin hadduu tagay sababaha tiimka uga tagayo inaanu iska ciyaari karin tiim kale marka quality-ga xataa taqaan way kala adkaayeen xagga akhlaaqda ka war xagga akhlaaqda xataa wallahi waxaan aaminsanahay ragga inay rag waaweyn oo akhyaar iyo gentleman wada ahaayeen mostly khaladaad iska dhici jiray laakiin ragga laga ixtiraamo Puntland oo dhan bay u badnaayeen tiimka barigaas ciyaari jiray iyo ragga u ciyaari jiray gobolku xataa inkastoo waqti ka dambeeyay kasii dadku kasii caqliyeysanayaan oo gobolku kasii nabad badnaa haddana waqtiga iyadoo nabadu yar tahay dadkan niman dhalinyaro isku kalsoon oo nooc walba leh magaalo walba leh mataqaan Kismaayo Jowhar Beledweyne meel walba rag ka yimid ay wada ciyaarayaan Muqdisho oo dhanka isdhexgalka xataa quality-gu aad u wanaagsanaa haddii aan isku siiyo dream team-ka 11 noo sheegi kartaa 11 waxaan oran karaa Mahad Faruur oo tare ah Madoobe oo duwa ah aniga oo 5 ah Qaadir oo 4 ah Sisi oo 6 ah Khaliif oo 8 camal loo ciyaaraya Maxamed Sheekh oo 11 ah Faarax Shamuuri oo 7 ah Minjir iyo Xasan Naafac oo 10 iyo 9 oo Minjir uu 10 yahay Xasanna 9 yahay Cumar Baflo oo goalkeeper ah taasaan oran karaa waa waxaan aaminsanahay inay meel ka soo bixi karaan ragga mahad reegalka ay waxay nasiib u yeesheen sportskooda waxa adinka in nasiib u helin garoon caalami ah hadda dhismo ku socdo bulshada reegalka ayo maxaad fariinaysaa yani ka gaarsiiya oo gudbin leh aad baan ugu faraxsanahay in gobolkayga uu stadium fiican yeesho rag baa dhexda u xirtay u dadaalay qaaraan u aruuriyay meel walba u garaacay intii wax tartayna ilaahay khayr ha ka siiyo intii aan wax tarinna ilaahay khayr ha ka siiyo labadaba oo niyadda ku haysay marka gobolkay waxaan ku faraxsanahay 2 gooraba inuu yeeshay stadium fiican qurux badan dhismihiisa hadda uu rag wanaagsan oo engineer gacanta ku hayaan si fiican loo dhisay waa nasiib wanaag waa ugu imaan doonaa ku ciyaari doonaa anagoo iska odayaala ragga jiilka soo baxay laakiin way naga opportunity fiican yihiin khayr baan u rajeynayaa iyo mataqaanaa niyad wanaag su-aasha ugu dambeyso sidee u aragtaa barnaamijkan aan ku wareysto la jannadii hore gobolka soo maray والله نيهو أرتد برنامج كوحن كورة تيني ركب الناد وريستيد ومتقن حماني سمان بكوريستيد وأنا برنامج في عن وأنا سود ويني عبد الغفار
waxa weeye markaa tiro ku wareysanaya horaan go-aan ka gaaray sababtoo waa jeclahay gobolkaygii iyo mataqaanaa dhallinyaradeedii isboortiga iyo gobolkii iyo mataqaan anytime waxa weeye wixii layga baahdo diyaar baan u ahay waana soo wici kartaan wixii arrin ah aad baa u mahadsan tahay intaas waxaan noogu ekaa wareysi aan kula yeeshay waqtigaaga muhiimka aad isiisayna waa ku mahadsan tahay waxaana ku rajeynayaa mustaqbal ifaya iyo waqti fiican saax sidoo kale walaal sidoo kale aan ku rajeynaya cabdiqafaar oo adiga iyo inta kula wada hawshaba guuleystaan idin leeyahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashadaad daawaneysaan janaalkayga fadlan subscribe ii saar aad baa u mahadsantihiin